muuqaalkan waxaan idinkugu dulmari doonaa creating local user accounts, taasoo macnaheeda ah in la abuuro user accounts annagoo isticmaalayna Windows Server 2008 iyo Windows 7. sidoo kale waxaan idinkugu dulmari doonaa oo aan halkan ku soo qaadan doonaa assigning IP addresses, in labada kombiyuutarba mid waliba aynu siino IP address si uu xiriir network u dhex maro. sidoo kale waxaynu qaadan doonaa install active directory, taasoo ah macnaheed in mid ka mid a labadan kombiyuutar aynu u qaadanaa server kaasoo maamulaya dhammaan adeegyadeena ama howlaha dhaqdhaqaaq ee markaasi dhacaya. ugu dambeyn waxaynu qaadan doonaa in markaasi labada kombiyuutar mid ka mid a aynu ka dhigano a client, kaasoo ah qofka la maamulayo adeegana la siinayo. ugu horeyn waxaan ka bilaabayaa creating local user account. markaynu ugu horeyn ku tuubno kombiyuutar Windows Server 2008, waxaa sida caadada ama saxda badan ku soo kaca laba user. waxaa sida caadada uu Windows Server 2008 ku soo kacaya laba user, kaasoo ah administrator mid ah iyo mid magacaaga qaadan doono. haddan ujeedkan leeyahay waxay tahay in administratorkani keliya aan soo reebo oo aan saaro Farah, ama aan soo geliyo user labaad. marka sida saxda ah haddii aan kalo administratorku wuxuu i weydiin doonaa password cusub aan abuuranayo iyo howlo kaloo haddan dheer. waxaan kasoo siinayaa passwordkiisa gudaha userkan Farah ahna waan iska duureynaa, ama user labaad ama mid saddexaad aynu abuurinaynaa. ugu horeyn waxaan kalayaa user Farah, isagu wax password ah kuma weydiinayo, hore ayuu u gudbayaa. markiinu gudaha u kalno user Farah, waxaan rabaa inaan abuuro markaasi user account. marka waxaan soo kalayaa ugu horeyn start buttonka, waxaan sii furayaa administrative tools, waxaan ka dooranaa computer management. markan gudaha u kalo computer management wuxuu weydiinaa confirmation yes ama continue. markuu ku keeno computer management dialog boxigooda, waxaad ka dooranaysaa local users adigoo furaya falartooda pluska ah. waxaad sii dooranaysaa users, double click waa in aad ku siisaa. kadib waxaad arki doontaa administratorkii userkii Farah ahaa. waxaan marka ugu horeyso password usoo yeelanaa userkii administratorka ahaa, waayo isaga ayaan maanta ama howshan markaan qabanayno ku shaqaynaynaa, waana muhiim. marka waxaad ku leedahay right click, set a password, kadib waxaad leedahay proceed. password markaasi waxaa laga rabaa aada u badan, ku jirana markaasi xuruuf, punctuation keys iyo numbers. haddan markaaniga waxaan ka dhiganayaa at least markaynu qorno intaasoo xuruuf, kadib waxaad leedahay okay. hadda administratorkii waxaan u yeelay password, waxaan ku leeyahay right click mar labaad, kadib waxaan ka leeyahay properties. waxaan leedahay user cannot change the password. haddii aad dahdid macnaha passwordka qofkaasi iskama bedeli karo, marka ma dhahayno. waxaan leenahay password never expires, waayo mar labaad laguma weydiin doono passwordkaasi, ama laguma dhihi doono bedel passwordkani, waayo muddo ayuu shaqaynay. marka waxaad leedahay apply,
kadib waxaad leenahay okay. waan iska soo xirayaa anigoo dhahaya markaasi log off. wuxuu u baahan yahay keliya control alt key. waxaynu ka dooranaa qaybta markii inta nala keeno waxaynu ka leenahay hadda administrator key anigoo qoraya password kii aan markaasi soo geliyay. welcome ayuu leeyahay. markuuna keeno shaashada waxaynu abaaraynaa in markaasi inoo suurta gashay administrator key uu soo kacay. hata waayo waxaa inoo soo furmay administrator key. marka waxaan rabaa user inaan abuuro waayo always waxaa haboon in administratorka wax walba laga abuuro. waxaan soo furiyaa start buttonka kadib waxaan dooranayaa administrative tools kadib waxaan galayaa computer management kadib waxaan ka dooranayaa local user and groups falartooda kadib waxaad leedahay users adigoo joogo right click inaad dhahdid new user waa dhihi kartaa ama waxaad tagaysaa qaybta bannaan ee shaashada waxaad leedahay right click new userkaasi waxaynu u bixinaynaa user 1 full name uma baahna waxaynu u suubinaynaa markaasi passwordkiisu waxaan ka dhigayaa kolley isku mid kadib waxaan leeyahay user must change password at next lacon waxa waa macnaha haddii kan jeega saaran yahay marka qofka soo kiciyo isaga iska bedeli doona user password never expires oo kaliya jeega saar kadib waxaad leedahay create. then waxaynu hubinaynaa in markaasi la abuuray userkii anigoo markan iska soo dhahaya log off kan of course hata waxaa soo galay user 1 kaasoo ah mid aan aniga soo abuuray waxaanu ku furayaa passwordkii aan markaasi usoo yeelay. hata waxaan aadayaa windows 7ka isaguna waxaan eegaynaa sida loo abuuro markaasi users. waxaan iska leeyahay hata wuu furan yahay log off. waxaad fiiraysaa ma lahan wax administrator ah waana arrinta dhibka keeni karto network-kaadana dhibka ku keeni karta. marka si taasi looga hortago waxaad eegaysaa in magaca markaasi meesha ku qoran hadduu administrator ahayn waa in aad soo gashaa userkaasi sida caadada windows 7ka noocooda ultimate-ka ah administratorku ma aha mid active ah waana security issue ahaan sababtay u xireen. marka hadda waan soo galaynaa kan ayaynu kicinaynaa administratorka waxaan kasoo dhigayaa enable. waxaan aadayaa my computer anigoo ku dhahaya right click kadib dooranaya manage ama start buttonka furayo computer right click ku dheh kadib dooro manage. marka computer right click manage markaan dhaho computer management dialog boxigooda markuu ii soo baxo waxaan raadinayaa sidoo kale waa local user and groups waxaan furayaa falartiyar kadib user administratorka ahaa waxaan ku duldhahayahay right click kadib waxaan dooranayaa properties. waxaan leeyahay haatan waxa jeeka saaran account is disabled jeeka ayaan ka qaadayaa waxaana leeyahay
apply kadibna okay waxaan u suubinaa password isagana right click kadib waxaan leeyahay set a password proceed waxaan ku qorayaa passwordkii kadib waxaan leeyahay okay wuxuu leeyahay the password has been set kadib okay hadda waxaan rabaa user account kii administratorka ahaa in la soo daayay intaanan shaashadan ka bixin waxaynu sii abuurinaynaa user cusub anigoo banaankan right click ku dhahaya kadib dhahaya new user halkaasna waxaan ka dhex abuuraa user la yiraahdo isna user 1 waxaan u suubinayaa password kadib waxaad leedahay user cannot change the password wasaari karta haddii aad saartid qof iskama bedeli karo marka ma rabno password never expires bis check ka saar si qofku xor u ahaado maxilligu doonana isaga bedelo waxaynu leenahay create userkaasi waan abuuray waxaan eegayaa marka administratorkii iyo user 1 iyo faarax oo hore u yaalay in ay haatan active yihiin anigoo soo dhahaya log off great administratorkii waa furan yahay faarax hore u yaalay user 1 waa mid cusub